barasaabka gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo ay ku weeliyaan barasaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi taliyaha qaybta gobolka Gabiley Mahad Shaqale ayaa maanta xarunta gobolka Gabiley ku qaabilay wafdi culimo oo ka yimid dalka Masar gaar ahaan jaamacadda Al-Azhar. barasaabka gobolka Gabiley ayaa faahfaahin ka bixiyay wafdigani iyo ujeedada ay dalka u yimaadeen isagoo arrimaha ka hadlayana waxa hadaladiisi kamid ahaa dalka Masar oo yimid dalkeena maanta inay maaragtay ku baraarujiyaan ummadda islaamka ah ee aynu nahay diinta islaamka iyo wanaageeda iyadoo aynu ku jirno bishii barakeysnayd Ramadaan shahr Ramadaan aynu ku jirno marka waxaan ku qaabilay maanta aniga oo barasaabkii ah oo ay weelinayaan barasaab xigeenkii iyo taliyihii qaybta iyo mas'uuliyiinta kale aan ku qaabilnay culimadii gobolka waxaan ku qaabilay xafiiskayga iyadoo aynu ku baraarujinay sidaynu ugu baahannahay maanta xiriirkii wanaagsanaa ee ka dhexeyn jiray labada dal in la soo celiyo sida aan ugu baahannahay in bulshada reer Somaliland maanta dawladda Masar uga qayb qaadato aqoonta waxbarashada dhalinyarada hadday noqon lahayn luqadii hadday noqon lahayn diintii inay gacan naga siiyaan iyadoo aan barasaab ahaan ka codsaday in iskuulkii ay jaamacaddaas gacanta ku jirtay dawladda Masar ee Al-Azhar Gabiley la keeno aan ka codsaday marka runtii aad baan ugu faraxsanahay inay dalka soo gaaraan waxaan maaragtay arrintaas aan ka wada hadalay waana ballan qaaday insha Allah inaan intaasi dawladda Masar kaga tagi doonin iyo jaamacadda Al-Azhar marka waxay nala joogi doonaan ilaa ay caawa ilaa ay berito leh iyagoo masaajidda tagi doona dadkana halka kala hadli doona Zakariya Raage Ibrahim Royal TV Gabiley.